Bismillah, Assalamu alaikum Soomaaliweyn. Maanta waxaan rabnaa inaan ka discuss gareyno radians. Radians maxaa waaye? Radians waa unit lagu cabiro angle-ka sida yani degrees loogu cabiro angle-da. Okay, marka haddii aan review ku sameyno degrees-ka, kan camal waa 30 degrees, kanna waa 90 degrees, kanna waa 180, kanna waa 180. Markii aan revolution full sameynana waa 360. Okay, marka radians iyo degrees saasay xiriir u leeyihiin. Haddii radian lagu siiyo degree ayaa u bedeli kartaa, haddii degree lagu siiyo radian ayaa u bedeli kartaa. Sida loo isticmaalo centimeters iyo meters. Unitka inta badan la isticmaalo waa meters, laakiin centimeters na wuu jiraa. Inta haddii lagu siiyo centimeters waa inaa u bedeli kartaa meters. Okay, centimeters ayaa u bedeli kartaa. Okay, marka radian sidoo ku imaaday, sideena lagu heli karaa 1 radian? Taas ayaan rabnaa inaan ka hadalno maanta. Okay, radian waxaa lagu heli karaa circumference-ga ama ratio-ga ka dhexeeyo circumference-ga iyo radius-ka. Okay, haddii aad goobo saan haysatid and then meeshaas uu bartamihii goobadaada yahay, distance-ga meeshaan to meeshaan waa radius-ka, inta ilaa inta, inta ilaa inta, inta ilaa inta fixed waaye, ma isbedelayso radius-ka. Okay, ratio-ga marka ka dhexeeyo circumference-ga iyo r-ta midaas oo ah radius-ka ayaa ku siinayso radians-ka. Okay, haddii aan inta ka bilaabno meeshaan oo aan saan u wadno, aaga aan sameyno oo noola mid noqonayo r-ta. Okay, so that r iyo s waa isla mid, and then so haddaa inta imaadid oo dhahdid waa maxay ratio ka dhexeeyo s iyo r-ta, oo sidaan aad dhahdid maadaama ay isla mid yihiin ratio-goodu waa 1. So midaas ayaa waxay ku siinaysaa 1 radian. Okay, ilaa meeshaas waa fahnay aan maleynayaa. So midaan waa 1 radian. Okay, so sideen ku heli karnaa radians ku jiraan goobo barkeeda half circle? Okay, circumference-geeda helaynaa marka ugu horeyso. A half 2 pi r, 2 iyo 2 way isla baxayaan, waxaan helaynaa pi r. Okay, so waa maxay ratio ka dhexeeya marka aagaas iyo radius-ka? Waa isku qaybinaysaa. Or waxaan u dhigi karnaa oo kale, haddii intaan ay noola mid tahay 1 radian from meeshaan to meeshaan, meeqa radian ayaa ku jiri karto inta ilaa inta? Cabirka ayaan haysanaa, kan ilaa kanna waa r over r, then you just get pi. So you have pi radian. So a half circle waxaa ku jirto pi radian, from meeshaan to meeshaan waa pi radian. Okay, intii ma haddana midaan waxaan helaynaa full circle, meeqa radian ku jiri karaan? Okay, waxaan helaynaa marka ugu horeyso circumference-geeda or aaga from meeshaan to meeshaan. Arc waxaa waaye just that, from here to here is also another arc. Marka 2 pi r waaye. Okay, meeqa radian ayaa ku jiri karaan haddii arc-yan uu noo yahay intaas, tan ilaa tan uu 1 yahay? So waxaa ku jiri karaan r over r, then they cancel out, you going to get waxaa helaysaa 2 pi r radians. Okay, quarter circle meeqa radian ayaa ku jiri karaan? Waxaa helaysaa marka ugu horeyso, the point waxaa waa inaa heshid circumference-ga aagaas. A quarter times 2 pi r, which is just the formula of getting circumference-ga formulada lagu helo waaye. Okay, waa isla cancelaysaa, you get half pi r. Okay, haddii tan ay 1 radian kula mid tahay, meeqa radian ayaa ku jiri karaan meeshaas? Waa isku qaybinaysaa oo kaliya. So that waxaa helaysaa pi over 2 radians. So quarter circle waxaa ku jirta pi over 2 radians. And midaan inaa idinka soo heshin ayaan idinku dhaafayaa. Okay, 3/4 circle. Marka ugu horeyso waxaa helaysaa circumference-ga 3/4 circle. 3 over 4 times 2 pi r leedahay, then waxaa helaysaa circumference-gaas. Waxaa u qaybinaysaa r, then you going to get the number of radians from measures to inter. Okay, marka haddii aan isticmaalno formuladan formulada ratio-ga 1 kana siinaysay
oo ahayd 1 radian wuxuu kula mid yahay s over r. So given the number of radians and r, can you get the arc? Yes, waa heli karnaa. Waxaan ku heli karnaa waxay noqonaysaa s waxay kula mid tahay theta times r. Thetadan waxaa waaye in terms of radians, okay? Because this one waxayna siinaysay radians. Meeshan hadday dhan marka aan soo sameynayna this was our s camal, then divide by the r is giving you the number of radians. Now haddii radianska aad haystid, you just multiply by the r. The radians times the r gives you the arc. So midaasna u baahanahay. Hadda waxaan aadaynaa example oo aan ku fiirinayno sida aan ugu soo bedelan karno radians haddii nala siiyo sida ugu bedeli karno degrees, ama degree haddaa haystid sida ugu bedeli kartid radians. Okay. All right. Given convert degrees from degrees to radians. Okay, waxaan haysanaa 30 degrees. So but before we go midaas waxaan u baahannahay one full circle. Waa maxay radians meeqa ay noo sameynaysaa? I think aday waa soo helnay. One full circle waxay sameynaysaa 2 pi radians. Okay, again one full circle meeqa degrees ayay sameyn kartaa? That's so obvious, idinka dhan waa wada taqaanin midaas. So labadan way isla egyihiin. Waxaad leedahay 2 pi waxay la mid tahay 360 degrees. one radian maxay kula mid noqon kartaa? Okay, this is 180 over pi. So one radian waxay kula mid tahay 180 over pi. The other way, 1 degrees ayadan waxay kula mid noqon kartaa this one saan aan dhahno. Okay, to mean 1 radian. Okay, haddii taas lagu siiyo, okay, intaa u qaybinaysaa oo keliya. Waxaad leedahay 2 pi waxay kula mid tahay 2 pi loo qaybiyey 360 degrees, in that pi over 180 degrees. Okay, so kuwaan ay haysanaa 1 radian waxay kula mid tahay midaas, 1 degrees waxay kula mid tahay midaas. Hadda waxaanu haysanaa 30 degrees. Ma u bedeli karnaa radians? Okay, waxaad leedahay haddii 1 radian uu la mid yahay pi over 180. Okay, what about 30 degrees? So this times that, this one comes down. So pi over 180 times 30. Okay, alright. This will be those radians. Alright, inta imaanayna. Okay, B waxaad haysataa let's say 45 degrees. Waxaa leedahay 1 degree wuxuu ku la mid yahay pi over 180. What about 45? 45 maxay kula mid noqonaysaa? Alright, waa isku dhufanaysaa oo keliya. 180 divided by 45, 4. Okay, so that you're going to have this is 1, this is 4. 45 degrees waxay kula mid tahay 1 over 4, I mean pi over 4 radians. Pi over 4 radians ayay kula mid tahay. Okay, so that was from degrees to radians. I think waa fahanteen. 1 full circle waxay sameynaysaa midaas 2 pi radians from our previous examples. Working out, I mean also waxay sameynaysaa 360 degrees. Waa isla ekaysiinaysaa so that saa u heshid 1 radian 180 over pi, 1 degrees pi over 180.
then sida conversionska sidaan waay marka waxaa leedahay 1 degrees waxay kula mid tahay taas, it gives you that. What about 30 degrees? And then 45, 1 degree waxay ku siinaysaa pi over 180. What about 45? waa isku dhufanaysaa 1 4 pi over 4. And then markaan waxaan sameynaynaa from radians to degrees. Okay, example 1. waxaan haysanaa 4 radians. Okay, so our previous example waxaanu aragnay inuu 1 radian noola mid ahay. Okay, 1 radian wuxuu noola mid ahay 180 over pi. So waxaan leenahay 180 over pi. What about 4 radians? This one we mean radians, in short form on convention way. Marka you just turn off dhufanaysaa tan waa imanaysaa, so that waxay kula mid tahay 180 times 4. Okay, 180 times 4, 720 over pi. Okay, so that is in degrees, so if you divide by the value of pi 3.142, okay, we said you're gonna get in terms of degrees. We can even do that. Divide by, so you get 229.18 degrees. They are equal, these two. Let's leave it. Okay, B. waxaan haysanaa 10 radians. Alright, so 1 waxay ku siinaysaa this. What about 10? isku dhufanaysaa le, so that you go into get waxaa helaysaa 1800 divided by pi. The value of pi aa qaadatid. Okay, 1800 divided by the value of pi we all know. sidaas ayay ku noqonaysaa. Okay, meeshaas ayaan ku ekeenaynaa maanta. Radians ayaan ka hadalnay. Waa maxay radians, sidoo ku imaaday, sidee ku heli kartaa quarter circle radian ka sameynayso, full circle meeqa radian ka sameynaysaa, 2 pi sameynaysaa. And also sidee ugu bedeli kartaa haddii aad haysatid radians to degrees ama degrees to radians. waxaas dhan waa sameynay. Marka waa intaas waa Soomaaliyeed. waa mahadsantihiin. إن شاء الله تعالى جلال بدن وحنا نرجع guul iyo barwaaqo.